qiso jacayl oo aad u xanuun badan dad badan ayaa la ildaran dhaawacyada jacaylka oo ay u geysteen dad ay ku aamineen nafsadooda kuwaas oo qiyaamay ugu dambeyntii ma jirto wax ka xanuun badan in qof aad aamintay uu ku qiyaamo muuqaalkeena maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qiso jacayltii ugu darneed oo aan arko oo uu inoo soo gudbiyey wiil ka mid ah wiilasha ku taxan barteena YouTube-ka laakiin intaanan muuqaalka gudaha u galin waxaan kaa codsanaynaa inaad like garayso siina share garayso si uu u gaaro saaxiibo badan oo sidaada oo kale u wanaagsan waxa uu ku bilaabay hadalkiisa wiilka qisada inala wadaagay 4 sano iyo 5 bilood ayay qiyaamaysay waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa qiso aniga igu dhacday waxaana idinka codsanayaa inaad taladiina igu caawisaan هديدي أمينتا حوين بانكو أرحامي هدينا حيانينو المليور إلديجا هديدي أمينتا حوين بانكو أرحامي magaciigu waa Axmed jooga South Africa waxaan muddo wada soconay gabar joogta Muqdisho xiriirkeenu wuxuu socday 4 sano iyo 5 bilood xaqiiqdii waxay ahayd qofka kaliya ee dunida ugu jeclaa oo aan arko qof astaamaas alle ku manaystay waxaan isku baranay meel ka mid ah goobaha la isugu yimaado oo ku taala Muqdisho intaana South Africa aadin ka hor xiriir qurux badan ayaa ina dhex maray nolosheeda ka dabaro waxbarashada iyo wax walba oo ay u baahato waxay dhamaysay jaamacadii aan ka bixin jiray ballankeena waxa uu ahaa waxbarashada kadib in aan dalka dib ugu soo noqdo oo uu arooskeenu dhaco laakiin kadib maxaa dhacay jaamacadii ayay ka qalin jibisay waxaan ku iri waan ku soo doonanayaa ayadana waxay igu tiri maya dib inoogu dhig waxaan ku iri qaaliso kuma balansanin xilligan inaan soo gabagabayno waxay igu jawaabtay go'aanka adiga iskale ama isug ama fasax ayaa tahay wallahi qalbiga ayaa dhaawac xun iga gaaray ma aanan ka filanayn hadalkaas sidee wax u jiraan maya waa saas ayay igu celisay kadib ayaan ku celiyay mee qabil ayaan ku sugaa waxay igu tiri sanad isug waxaan ku iri sanad way badan tahay ee kuma sugi karo wax kala sheeg maya sanad isug ayay igu tiri kadibna waan ka ogolaaday waqtigii markii la gaaray ayaan xamar ku soo noqday markaan imid kadib waxaanba maqlaa in maalmo dhow kadib ay aroos tahay soona doontay nin kale oo ay wada socdeen oo ay ila waday inta aan wada soconay wallaahi talo ayaan idinka soo raadsaday waxaan sameeyo ayaan garan la ahay ayadiina taleefan igama qabanayso waa gabadhii aan darteed safarka u soo galay biliis haddaad ila damqatay waxaan ka codsanayaa inaad ii duceyso talada mid ugu haboonna aad ila wadaagto ugu dambeyn haddii aad dhamaysatay qisadan xanuunka badan leh ee haysata wiilkaas ama dhibka haysta wiilkaas waxaa lagaa codsanayaa inaad taladaada ku caawiso way xanuun badan tahay markii lagaaga baxo ama qof aad aamintay markuu ku qiyaamo weliba xaaladdu markii ay marayso meesha ugu dambayso oo gabagabada ah wiilkii ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyey asagoo weliba rajabeel ah ma garan doono waxa ay nolosheeda u dambayn doonto iyo sida uu xaalkaygu noqon doono هديدي أمينتا حوين بانكو أرحامي هدينا حيانينو